taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dekedaha Soomaaliland iyo saraakiil kale oo kamid ah ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kormeer ku tagay gasiiradaha Saacadin iyo sidoo kale gasiirada Ceebaad. kormeerkan ay ku indheeyeen gasiiradaha ku xeeran degmada Saylac ayaa waxa ku wehelinayay barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale duqa degmada Saylac Saacad Daahir Cige, maareeyaha dekada degmada Saylac Siyaad Daahir Camuud, isla markaasina booqday noobiyada ku taala gasiirada Ceebaad iyagoona ay uga warbixiyeen maamulka gobolka waa barasaabka gobolka Salal iyo sidoo kale duqa degmada Saylac iyo sidoo kale maareeyaha dekada degmada Saylac ay uga warbixiyeen xaaladda gasiiradahani ku xeeran degmada Saylac. mudane maareeye halkan aan joognay waa noomiyadii isku xidhaysay sidaan hore u soo sheegay baabulmada maraakiibta maraysa iyo maraakiibta joogta Berbera. noomiyadani waqtiga waxa dhisay dawladda Turkiga waqtiga ay ka talinayeen iyagu degmada Saylac ee qadiimiga ka talinayeen. noomiyadani waxay ka mid tahay yacni taariikhiga ee aan ku faano degmahan ima gobol ahaan bay ka mid tahay. runtii waxa uu shaqada ugu dambeysay waqti muddo 30 sano ka hor. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka kooban tahay 8 jasiiradood. 7 ka mid ah sida gudoomiyuhu sheegay waxa dhacday degmada Saylac. hal jasiirada ayaa bariga dhacday geedka Shabri Arabshiga la yiraahdo Ceerigaabo ku taala. waxa aad iyo aad aan ku soo dhaweynaa halkan oo jasiirada Ceebaad. jasiirada Ceebaad waxa ku taala noobiyadii qadiimiga ahayd ee xilligii Turkiga la dhisay. aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa marka laga tago taariikhda guud ee noobiyadan kulli hore wax looga soo yiri laakiin aan waxa sheegi doonaa in ay 4 noobiyadood ku yaalaan koonkan eerladan ama soonkan aynu ku noolahay. mid waa Mamiyo bay ku taalaa, midna Obaqay ku taalaa, midna waa Tan Ceebaad ku taalaa, midna Berbera ku taalaa. laba ka mid ah Soomaaliland bay ku yaalaan jasiirada, midna Yemen bay ku taalaa, midna Djibouti. labada ka mid ah Soomaaliland Berbera way shaqaysaa. waxa muhiim ah tan inaynu ka shaqaysiino maadaama gobolkana uu yahay ama degmada Saylac tahay degmada ugu ansaarta badan leh Soomaaliland. sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay maareeyaha dekedaha Soomaaliland isagoona ballan qaaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ka qaban doonaan noobiyada ku taala gasiirada Ceebaad. iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxa hadalladooda ka mid ah sidatan waxaan mahadcelinayaa inanka saxaafadda oo gudbinaya isla markiiba waxa loo waxaan qabanay hadalkii waa dhameeyay annagu waxaan waan ka ciidanahan inaanu qaybteeda ka qayb qaadano waxaan ilaalin doonaa noobiyadaha kullan way la farxabo wixii aataara way ilaalin doonaa haddii la ka dhigo waxaan xoojin doonaa sidaan u ilaalin lahayn xadkeena iyo ciidankeena loo kordhin lahaa. waxaanu gudanayna waa waajibaadkii qaranku xaqan ugu lahaa aan xilka ugu haynay. noobiyadana arkaysaan waa important waa yani aad bay muhiim u tahay sida uu sheegay gudoomiyaha degmadu inay xidhiidhiso baabalmandab baabkan oo ah 35,000 oo markab ayaa mara waana kuwaan rabno inaynu soo jiidano oo aynu wax ka iibino. markaa waxaan maanta ballan qaadayaa in noobiyada oo aan 30 sano shaqayn sababta aanu imina ay ka mid ahayd iyada inaan sidii aan u soo xaaladeeda u soo eegi lahayn waxaan ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan noobiyada uga shaqaysiin doono waliba aan u casriyeyn doono oo navigation lightskii ay lahayd lighthouse-kii ay lahayd ku samayn doono iyo dib u habeen aad iyo aad. waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadlool wararka Ariel TV magaalada Saylac.